بسم الله الرحمن الرحيم mahadda maanteed ilaahay baa iskale inoo suuro geliyay isku nimaadno khibrad wadaag kulankii sideedaad maanta waxa martii inoogu ah doctoris hooyo hodan jaamac cabdi si kalena waxa jaanis u heshay qofkii koowaad haween ama dumar ee barnaamijka inoo bilaabaya xalqadii hore rag ba u yara badnaayeen marka hadii aan marka hore inoogu bilaabo taariikhda دكتور هذا سياد مركز تاريخ ده فانتان كديمنا خبرة ده إنه لو ذاكته دكتور هذا جامع عبدواد اخترت كتر سن شقالها عسبيتال كوين إيبورما أهنا ماذا حقيبة عرور تكير بيل ماذا عسبيتال كأول سيدو كله براسره وحكي جامعة عمود يكرميره أرضية برات علوم تعافيماتك كل دوّن جامعة عمود كلينيكال سوبرفيسور waxa kale oo ay ka soo shaqeysay Dr. Hodan urka wadaniga ayoora oo markaana kamid ahayd aasayaashii boardkiisana ay kamid ahayd Hodan waxay leedahay 15 sano oo khibrad shaqo ah Dr. Hodan waxay u baxday koorso caafimaad dalka Germany 2019 oo ku saabsaneed caruurta yaryar Dr. Hodan waxay ku dhalatay Muqdisho dugsiga hoosena halkaas ay ku soo dhigatay laakiin dugsigii dhexe ilaa sare jaamacadii waxay ku dhigatay Boorame waxay jaamacadda Amuud ka qalin jabisay markii u horeysay 1999 Diploma of Agriculture sidoo kale 2006 waxay ka qalin jabisay Diploma of Business and Public Administration isla Amuud 2012 waxay ka qalin jabisay Medicine Bachelor of Medicine عمود يدنا سيدو كلا لبضة كون يلحية طبعا وحكي قلين شبسي family medicine أو master سيدو كلا لبضة كون كوبية لبعتنكي وحكي قلين شبسي master of health education إسلا جامعة عمود دكتور هذا وهو يقيس كده كومية هي لحرورة أيوه حاج كده الله نحرسته حاج كده وحو غيريو لبضة كون يلعتنك سنة كيوره حاج كده مركات نولش يده وحكوها تيروين أو وح بدن وقبتي هذا وحي تصالح عن ربنايني نوجو نقطة hooyo oo ardayd wax baratay isla markaana shaqaale caafimaad intaas waxaan ku soo koobayaa taariikhda waxaan imika idin kala baxayaa idinka iyo shakhsiyadda aadka u cadiimkeen maanta dhan la rafanayay taariikhdeedina aan akhriyo kolba dareemaysan inay iga galeysay oo ixtiraam badan u hayo soo dhawow Dr. Hodan nala wada khibradaadii waxay nala joogtaa dhalinyaro kala duwan oo qaarkood caafimaad yihiin qaar laga yaabo inay shaqeeyaan iyo doctorate sidoo kale nala jooga marka hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ilaahay ma mahadle soo kan keenay goobtan quruxda badan ee daayirtu iyaga leeshay magacaad ka garanaysaa khibrad wadaag waxaan mar labaad aan u hambaleynayaa tiimka khibrad wadaag Axmed uu hogaaminayo barnaamijkan quruxda badan ay inoo soo diyaariyeen run ahaantiina barnaamij faa'iido badan u yeelan doona daayirta dadka lagu wareysanayo u noqon doona xasuus qurux badan way waqtiga ka soo tagnay ma xasuusano tahoruma ku sii soconaa soo aniga ba xasuus baan galay ilaa waxaan ku noqday halkan ka soo bilaabay soo aad baan u mahadnaqayaa xasuusintaas aad ii sameyseen intaanan bilaabin waxaan ka cudur daaranayaa barnaamijyo hore oo laga soo dalbaday oo aan diiday laakiin su'aal baa taalo ah kan maxaad u ogolaatay waxa kamid ah saxaafado iyo TV caalamiya sida Hon Cable TV daas walaal qaaligu ah Cabdulla Cali Yuusuf oo dhowr jeer xataa guriga ugu yimiday waan ka cudur daaranayaa ma jeceli saxaafada iyo boonbooninta waxa kale oo aan ka xusay waxa leeyahay barnaamijka waxaan ku doortay Cabdulla waad ogaan doontaa waxa kale oo aan ka xusayaa shakhsiyaad gaar ah oo qaaligu ah oo iyagu markaa dareemay ligii aan qalin jabintii horeysay 2012 dadka waxaad moosay aad bay iigu soo jeesteen Cabdiraxmaan Aadan oo isaguna markaa article iga qoray soo aad baan u salaamay isagana team dhalinyaro ahaa iyaguna xilligaa jiray maskaxmaal oo sabab u ahaa dadku inay igu soo jeestaan xataa jaamacadda Amuudi may ogeyn qaybta kulliyadda caafimaadku maancaanka ah jaamacadda Professor Salmaan markuu maqlay aad buu uga xumaaday yiri aniga ahayd inaan sameey maamuusta teamka maskaxmaal cidii ka joogtay hadduu sii shaqeeyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo xilligaas ahayd xafladana filaynba soo qof naftiisu wax soo bartay soo qalin jabiyay in la yiraahdo kaale hadraawi
iyo Professor Saleebaan iyo xirsi oo siyaasi ah kursi la soo fadhiiso waxaad lagu siinayaa shahaado sharaf aad bay iga weynaatay waxaan filayay ma yahay soo tiimkaas aad baan ugu mahadcelinayaa focuskan iyaga igu soo jeedsan oran karaa inta haddaan kaga baxo aaraarti khibrad wadaag haddaan usoo noqdo taariikhda saa uu usoo gaagaabiyey Axmed runaantii maxaa safarka dheeri geliyay baad is weydiinaysaa waxaasoo dhan maxay wax usoo baranaysay muddada intaa leeg maxay maruun u dhammaystiri weyday runaantii waxaan ka mid ahaa laga yaabo maanta inaad chance wada hesheen intiina badan inaad iska bilowdo ulo ilaa jaamacadaada ismuud ay kuugu dhammaato taasna waxaa suurtageliyay ilaahay amniga iyo nabadda aan haysano anugu waan idinka duwanaa waxaan la kulmay gaab baan la kulmay waddanku colaadi ka bilaabantay 1991 waxaan ahaa form 1 form 2 baan ahaa semesterkii koowaad waddankiina saas ku baaba'ay hamad baan lahaa higsi baan lahaa dreamka caafimaadka ama inaan dhakhtar noqdo ilaa anoo yar waa ila socday taas markaa waxay keentay waddankiina uu baaba'ay no school university iska daawarkeeda dad meel ku urursanay iska daawarkooda markaas waxaan aastay ama aan meel ku xariiqday inaan maalin maalmaha ka mid ah aan gaari doono hamadeyda markii colaadii laga soo noqday qixii waxaan isku helnay team sidoo kale damac leh waxbarasho leh meesha kale lagu gaban karay waxay ahayd private schoolski lagu baran jiray English language so waxaan ku soo baranay curriculumkii Soomaali wuxuu ahaa Soomaali so secondary marka la soo galay book kushin dheer la dhigan jiro English so Englishka zero baa laga ah so wax kasta wuxuu ku qornaa Soomaali so marka qof kasta wuxuu ku fikir jiray inuu private galo luqadda iska dhiso jaamacad mar hadii la gaaro secondary dadkuna hiigsi buu qof kasta lahaa hiigsigii uu baaba'ay colaad baa timid jaamacadna warkeeda daa marka waxaan aniga iyo team aan halkan inaan ku soo jeclahay my colleague walaaligu qaaliya Nimco Nuur Maxamuud iyo waxaan u kacnay inaan raadsano macallimiinta soo qaxay ee xamarka yimid iguna colaadu keentay aqoonyahankii kasta waxa dhacay in gurigiisa ku soo hoydo aqoon ma lihin la isma yaqaano mobil ma jiraan telefoon ma jiraan meelad kala xidhaana ma jirto waxaad adeegsan jireen waraysi yaa macallina yaa ku fiican maadada caynkaasa yaa Ingiriiska yaqaana iskuuladu way xidhan way dhasaysteen kadibna waxaan ku dadaalnay inaan class furano macallin soo qabsano Ingiriiska marka halkaas aan ka bilowno barayfadkii ugu horeeyay laga bilaabo Boorama على أفريقيا دونور يا الله أمريكا وسيادة دول كان الله وحرسه ومدفق بهايد ما حسوسته كدب هذانا ونجت جي توبي وشقة كي ويركو باب أبوها كدبنا علنا وصار عليه هذانا مرة بعد كدب وحن سميني أنا جيو كوليج سير اللي معاك كسي حسوسته إن أحمد الشيخ مهدي الله يرحمه وسوى ذا قاعدين تينا بدن وأفرق في جلاسكو هايستا إن نتجنا كنا هنا معنا نحن بهنا نوركته وهذا ده يصور صور جلاس سمايستا دنا waxay noqdeen guri walba garaacno kaalay dhulkii baabay rajun bay iman doonta barayfadka aan galno soo ururna ardaydii dana aan barayfadkii halka aan ka bilowno Axmed Sheemadina ilaahay xajanaasiyo macallin noogu noqday Ingiriiska noogu bilaabay 1997 markay gaadhay waxa lagu dhawaaqay furitaanka jaamacadda Camuud ka hor waxa markaa dreamkayga ku jiray wali ku aasnaa caafimaad waxa kaloon gabaad ka dhigtay barayfadka ka sokow inaan dhakhtarka weyn tago aan wuxuu ka arko qof la mudayo ما أقام قف بكانو حيسة قلي استالك وين وحنا كدكتي جبات كيلا بعد استالك بابا بابلهين عبسي مقالة هبلها أن لو قرين بحان جوان الوريتو عبسي بدنا يشرتو وحن كل هذا إن هالك لحتو الحمد لله هل كانوا جوا وحلو قدوا جامعة عمود إلا فري وحي يجوا هاد مالنتي يجوا فرحة بدنين لكن ما لو كان يستوى هيك قلنا لكم تاجيه وحنا يستوى علم على برتو إنجليش على برتو ومنها على الشكل بس كي سكندري ويجا مقيه دنا وحن وترتمي وكم من نقطة ترتمياش وهري جامعة عمود وفريستا امتحان كيدي تيم بدن دت كان لقنا ده سكندري كنا مية وضحايا دوال ولا باصي إن يروانو كتيرو ما ننهي امتحان كي وما نقول إنسان أد وحي واحد ما أنتي كلا يقوم مرقدة بعدين وحن سوقي لحصة 1991 up to 97 سير وحين سوقي إن أنا أوجين سوقي وإلى هاي كانوا هذا كقيد جلوي وحي يقولوا قطعي بوجر بانكو قري بلاك دي بانكو قرتي دان marka waxaan sameeyay hadana waxaan araarta dhan u galana waxa weeyaan soo halkan maxaan ku soo gaaray inaan ogaano waxba beeso wax kasta asaas ah
ما نستي ما نصيحتي ما كسر بودي مسيدنا chance اسكو سمان هلاي ومع بريق مع بس مع بتشاج ما يا دنا waxaan jaamacadii waxa dhacday inaan markaa ku guuleysanahay dan dib baan isku analyze karin aniga teamkii markaa aan ku guuleysan waxaan si maxaa oo minaga secondary ba dhamaysanay imtixaanku Soomaali buu ahaa Soomaali baa lagu qaadayay oo basic secondary-ga dan waan ogaanay caqabado ay ka jirto maxaan raadinay macallimiintii taqaanay culumta secondary-ga ama maxadan professoradii ka yimiday oo aan ka xusuusto Abiib Cabdi Xabashi oo xisaabta aad u yaqaanay وان كسو كحينا مقاحي سو فدي قال waxaan lagu xisaabta taqaanay barayfad bangiina qalban ka furnay ta kale chance ku haystay abtiga wasaaradda waxbarashada haystay Allah naxariisto yabaal dan furayaashana dooni jir class baan soo macallin baan soo helaha okay la mariya ya abtiga class no fur malaayinta school elementary-ga school-kan xawta ka imika sheekh galbeedi loo bixiyay qasabka loo yaqaan hadda maxaa loo yaqaan sama kuwaas midaan galaas ka furma jiro furayaasha waan soo qaadan jirnaa waa dhul de iska baabaa waa dhulka soo damaka waxaan ogaanay waxa naga dhiman danaalkii baan ka bilownay inaan helno yaa yaqaan chemistry yaa yaqaan biology yaa yaqaan wixii naga dhinaa dana sidii baan markaa macallimiintii way u baahnayeen iyaguna suuqa iska joogeen lacag baan u haynaa waan sidii baan ku bixinay dan imtixaankii labaad semesterkii dambe sanadkii dambe la qaadanayay jaamacadda imtixaankii waan u fadhiistay way waan soo tabcay waa ku guuleystay laakiin caqabad kale jirta hadana kama fikirin ba jaamacadu lacag bay u baahan tahay waxaan ku soo riyoonay waxay ahayd marun madaxweyne dhaafsan ma oran dadkii hore wada jaamacad galo soo dana waxa timid caqabad kale oo ah in jaamacadii ay lacag u baahan tahay okay lacag lama hayo waxa ku dhaganaan jiray liiska wax lagu soo dhajin jiray aadan micaad stationery-ga qaybta hore ka soo jeeday reeyadan caawin loo jiray bariga الله نحرسته آدم بعد ليش أصلا نقول شيء هالكاس هذا تقول ماذا وده كنت هاي محل جامعة وتسوي محل تجمع العقبة هي جامعة العقبة اللي نقول دجانية دن تحصل مركز عدنا وجهري جامعة دي لبعض حين جاوا حكي كده بي وحن مركز أقول له حذي وحسود دجا على فكيك أكتشولي ذاتك حتى يقول كأنه كنت دجان شيء علم هاي واحد شيء لو حاولنا شيء أفرت المكان جارو يعني علم دميايو ينقول سنتنا لقي على فكي ويمد وينقول سري marka waxa isku qorneedo jaamacadii caruurtina bar isla bilaabmaan soo alxamdulillah markaas halkaas waxa ka bilaabmay inaan qoyskayga leelo so then one of my colleague ku guuleystay jaamacadii ba inta ilaa halgamayso la saaxiibadaadii qaaliga mar boqol idin furi jirtay akay ku dambeysay marka waxay soo sheegtay in diploma beeraha ah oo free ah laga furay jaamacadii kadibna halkaas inaan ka soo qayb galo marka waan tigi halkii baan ka qayb galay diplomkii beeraha soo beer wax kama aqaano dadka dhiganay wadadiga wada waaweyn waa galaaskii actually ugu yaraa intaan galaas soo maray galaasyo badan ma soo maray soo marka diplomkii baan la galay diplomkaas waxa caqabad igu ahayd wala lugeyn jir jaamacadda cimud laba bas kaliya lahayd labada bas ardayda lacagta bixisay raaci jirtay anagu maadaama diplom free nahay wala lugeynaya waxaan xasuustaa hooyo nagu jirtay gabar hooyo xilliga ahayd waana tayar baa la yaqaan bariga halkan maanta ma soo gaaray waayo hooyeen la gaaro waa mustawa sare soo tayar baa la yaqaan inaan reer leeyma ogeyn xaamil baan haleeyma ogeyn ragan la tuuran jiray waan lugeyn jiray iyada laakiin gaariga shaqaalaha macallimiinta qaada lagu qaadi jiray qadra qalan halkan ka salaamaya iyada waa la qaadi jiray anu markii fasaxii la galay kadib waan u mulay leeyma ogaan professor Abubakar Sheekh Abdullah naxariistay ayay tabayiri gabadhii yar halkay bartay tiyarada active waska hadal badnaayo meel kasta waa dhex gali jir tiyarada halkay martay waa la tabay markaas tiyar ba dhashay tiyar ba dhashay wasoo tii magaysta buuraa ka dhici jirtay gabadha ma qaadireyn maxaa lagu sheegi waayay aad baa loo naxariistay igu calaalay intaa wixii ka dambeysay semesterka dambe waxa laga soo diri jiray xaajiyadii ugu horeysay ee jaamacadda Amuud loo iibsho ayaan jaano sare lagu qado Saciid Nuureed Darawalka ah gurigayga ma jirto laga soo qaadi jiray soo tii markaan dhameeyeen meel wacda meel ka mido anu agriculture waxaan uma socdo waxaan ka yarxiisay kooraska animal husbandry-ga oo caafimaad ka dhaxarkay malaha kooraskaas aan aad u jeclaa tii way dhamaatay dadna wax ku soo noqday dhakhtarkii weynaa iyo reerkii caruurtii waxa la helay waxa la furay marka waxaan ka walsanaa caruurtan iyo hamadaad jeclaysa suuq wadi doonta cabsi bay gashay haddaan sii wadi lahaa xilligaa dhaqaalana waan helay waan iska bixin karay jaamacadda laakiin cabsi bay hesho ah
reer baad yeelatay hooyaad noqotay jaamacaddii hawl bay u baahan tahay hasitan badan baan markaa halka ka galay haddana dhakhtarkaanoo jooga waxaa idhi waxaa jaamacadda waxay u fargalaysa shaqaalaha dowladda ee business and public administration free ah dan imtixaankii waan galay soo gabadh ilaa markii dhulka laga yaacay wuxuu dhiganaysay waan kaga tuuray waa lay qaatay businesskii markaan galay ayaa waxaa dhacday inaan israahdo maxaad caafimaadkii u raadi weyday rajadaadii maanta ay muuqataaye danna markaasaan anoo sanadkii hore markuu dhammaaday ayaa waxaan go'aansaday inaan galo caafimaadkii tiim dhan baan ahayn markaan sheegnay Dr. Saalax iyo aniga markaan naga soo go'day dan waxaan u tagnay walhad wuxuu nagu yiri inaad farashka soo martaa doctor ina mikaaban shahaado 10 shahaado laba shahaado marayay maxaa farash naga celinaysa maya waa basic wala soo maro farashkii baan sidii ku tagnay farashkii markaan tagnay farashka waxa loo tagay wuxuu noo sheegay in science la dhiganayo biology basic caafimaadka halka laga soo kabayo soo farashkii ma jiraba wax basic iyo science meesha wax lagu dhigayaa arts social iyo psychosocial iyo waxa meesha lagu dhigaya dana hadana waa niyad jabay wariya ilaahay yaqaan waaniga ku noqday saalax waan kulma inaan kulma dhiganayo waan business kan iska sii dhameysanayaa iska nabadga saalax filmi hayga hadin wal had biigu dalo wuxuu weydiitay hodan inay caafimaadka gasho watan way ka soo niyad jabtay wal had khayr badan Allah siiyo dhiirigeliye weyn oo hormood noo abaha weeyaro wuxuu igu yiri xilligaas waxa 2006 wuxuu igu yiri hodan waxa ii sheegtaa 2000 markii la sugayay sheeg markaas ku mar hore ahay maxaa la oran jiray boorma buurta soo ku soo fatahaysa bad bay noqonaysa naagaha xadaba dadka cunaya waxa laga sheekeyn jiray 2000 marka la gaaro soo markaas waxa soo maaha 2000 marka la soo dhaafay 6 sano la soo dhaafay miya dareentay maya dad 7 years oo caafimaadna waa saamid dareemaysid samka ku noqon kori science ka sheegaysan ana imka la hadlaya soo waxaan ugu soo qoray waxa loo kala qeybiyay farashkii arts iyo science dana gaariya la naxariistay biology lagu soo qoray soo sidii baan markaa ku bilaabay hayaankii aan marsiinka ku soo galay soo marsiin dadka horwajida arkay marsiin bay u badan yihiin marsiin maada adag marka loo eego meelaha kale waxa baan tahay dadaal badan hooyana ah dadka soo abaleegana dad yar bay ahaayeen galaaskayga ugu badnaa oo waxaan ahayn 17 qof baan ku soo galay maalin baan ugu jiray wax idinka tagin wax dhoofayana ma jiro qolo soo habsaantay weeyaan dan marka cabsi badan waxa marka kelmadda ugu weyn ee wal hadaan ka xasuusta waxa ahayd 2 point baa igu dhigay marka marsi soo galay waxaan sidaa soo doontay marsinada soo galay ko dhakhaatiirtuna way ku wada garanaysaa laba hooyana waa tahay hooyadii horeysay marsi soo gashana waa tahay saddex iyo professorka mar walba leh albaabka laga soo galay uu yar yahay weyn yahay ka laga galaana uu yar yahay markaas wala soo galay laakiin cid ka baxdaa way yar tahay inta badan waxaad ku har doontaa caloosha kuliyada ayay dhex joogi doonaan dan waxaan iska ilaalin jiray inaan noqdo kuwa caloosha kuliyada ku hara waxaan iska ilaalin jiray inaan noqdo hooyo dambe oo waxbarasho u soo hanqal taagta inaan noqdo hooyo jabisay caruurtiina markaa way sii kordhay ma sha Allah ta kale markaa aan samaystay taargadiyahay waxay ahayd inaanan maxay hidaanay aanan targetka meesha aan u socdo aanan marna ka leexan inaan ilaahayna tala saarto soo hadaan ilaahdo waxaan baranayaa waana reerkii dumiya hadaan ilaahdo waxaan baranayaa waana caruurtay dayaca soo markaa waxaan qaatay arin ah hadiyada ilaahay isiyo reerka quruxda badan sawjka wanaagsan ay garab taagan ilaahay jannadii ha geeyo inaan maxay heedaanay aanan ka jabin waxaan go'aan ku qaatay inaanan midkoodna aanan tusin liicitaan waxaan jaray saaxiibo badan baa lahaa sidaan soo sheegay waxaan qof abaaba garaacda way telefoonama jirino marka la israadinayo de buura modern caan baan ka ahaa soo waxaan jaray oo go'aan ku qaatay inaan jaro frame wax la yiraahdo frame-kayga aan ka dhigto awlaada iyo guriga iyo buuga labadaas aan la saaxiibay alxamdulillah ilaahay inuu igu kuleeyay soo arin kasta oo aan u dhaqaaqana ilaahay baan tala saaran jiray soo marka cidda ilaahay tala saarata ilaahayna isaga u fudaydaya hatta kala korin iyo awlaadu inay kala koraan iyo family plan wax raahdo waxaas ma sameyn jiray just ilaahay ma arrimahayga u dhigto oran jiray ilaahu aduu ii qorshe ugu saxsan yaani wax xasuusta ilaahay sidoo ii caawiyay inaan hatta umushayda iyo xilliga ugu adag aan ku beegmi jiray fasaxyada marna leeyama dareemin intaan jaamacada dhiganayay waxa la mid ahaa unda yarta dhiganaysa alxamdulillah waa nimcooyinka ilaahay taasina markaa waxay idinku noqonaysaa inaad wax kastoo qabanayso aad Allah isku xidho
markaan dhameeyay jaamacaddii ka qalin jabiyay 2012 waxay igu dhacday buunbuunin badan aanu ma filayn umana dhag taagin umana dhag raaricin in xataa jaamacadda ilaa madaxtooye la gaarsiiyo gabadhaas la kaxeeyo dad badan ii soo istaageen soo aanu awalba allah waan balan la galay ilaahay ba isoo garab taagnaa waxaan nafteeda u sheegay inaan cidna u baahnayn cidaan u baahana ilaahay tahay balanta cidaan u soo galna allah tahay cid ay baahan inaan u shaqeeyo taas markaa istikhaaraan ka tukaday ilaahay iga masaxay qoladii dawladda iyo siyaasiyiintii iyo waxaas dan waxaan bilaabay internshipkii waxaan soo galay dhakhtarka weyn internshipkii inta sifir bal lagu qaadan jiray oo markaa iska fiicnaa $500 meelahaas u ahaa gaab baan galay galaaskayagii xilligii waxa bilaabay lacag ma jirto waa internshipkii u baaba'ay markaa wala kala yaacay waxay niday family programkii dana markaa inantii lixaad oo halkaas soo fadhida Nasriin ayaa markaa aniga iyo calool gashay soo maan gali karin sanadka hore family programkii waxaan ku adkaystay inaan internship si ahaado dhakhtarkana ka soo shaqeeyo xilligaas waa niyad jabay waa run qof markuu soo qalin jabiyo muddo dheer soo socdo wuxuu rabaa kaash inuu taabto wuxuu rabaa wuxuu ku soo daalay inuu arko xilligan waa niyad jab waxaan raadinay shaqan raadinay dana anigoo xaamilo ah ayaa Saciid Maxamed Dahra la naxariistay oo organisationada ka soo wada shaqeynayay iyo waxa mashruucyo badan ka soo shaqeynay soo raacay يقول حرسي بقى كدوني والحرسي وحواني كاستخارستي واحد لا يشك ولا شقة كويس شقة مربطة ها وربا ما لو دول لسه حكسنيو تشاب كاش في عنا لأن سيدي وأكو بحيرة حاملة بحيرة إن هرجيسة ممكن على شقيني هرجيسة بربرة يو قبل كعوضة إنا كتهرجة بحاجة إنه جرافيك ريسيرش بالورني أو يلا دوبة يدنا تراسكريم القراية شقة أبدا لكن حصلها يالكم markaan meesha shaqada galay waxaan imtixaanka markaan u fadhiisanay imtixaan baan laga qaaday computerkii iyo language-kii waxaas isla Mareykan ay wadatay programka UNICEF iyo xasal lagu dabagalay hay'adaha u shaqeeya carruurta ayaa la eegay shaqada qabtaan iyo goobaha ka shaqeeya soo gabadh baa isoo fadhiisatay muraayad weyn xiran aad u labisan waana miskiin yar oo soo jabtay oo marsin ku soo daashay oo adduunka bal haysan ma soo waan xasil maanta kayma soo gashay marka xataa ma aqaan lacagta lagu shaqeeyo waxaan jaani jeebka fiican lacag doon baan halka u maray soo gabadhi waxay igu tiri imsad filaysaa markaasaan ku oray markaasaan dib isku yar xasto inaan dhakhtarad baadahay anu konton $50 dhebeerley hadda ka yaraato boona ma ku noqonay ma ku markaasay igu tiri maya 100 baa lagu shaqeeyaa safarkii u dambeeyay 100 baa ku soo shaqeeyaan beerday oo nolosheedina la qabay oo wada ka wanaagsanba أنا في يوتيوب وصل شقتك بيه كده بناتي واحد قاعدين أنا بيس دسنين وحبا هين با مركا كسر السير الحمد لله أنا ذيك علمي لها دنا هاي يرتاحي وح ونعكسن لعقت الله على هذا معها صار مشروعي وأنا قد بدأ هذا واحد علينا كفوا شيء بربرة صفر اللي جوا ومشروعي هنا كشقينا يا إن أنت نصرين برا بربرة لو بحي بربرة كسر على وأنا كسر نقضي هالك مركاني مدي ولي وحبا حنتين يا وحنسري oo inta hadii curad baa ku soo dhaway oo jaamacadaas ku soo gaari doonta oo dadka shaqo raadis ma soconayso wanaad family mise wanaad gashaa tan jaamacada lagu soo gaaro wanaad master anis waynaad bas graduate diyaarisa soo dama qasadana dib u abalagariyana umuna soo umushiiban dib u abalagariyay programkii dadna waan ku guuleystay alxamdulillah afar qof baan markaa ahayn sidii baan markaa ku galay xilliga waan xasuustaa wuxuu ahaa wax la barto wixii ugu adkaa umul baarha ilmo yar baa gurigii ii jooga alxayaat baan ku sameeynay ma jiro jidkan isku xiran ma jiro guri xataa aan ka akiraysto oo ilmihi yaraadii aan ku soo dhaweysto waxaan saxay 36 hour isku xiga inaan shaqeyn doono oo aan hour u dhaxaynay markaan tagno 6 ma soo bixi jirnay waliba haday 24 hours habeenkii la shaqeeyo ku dheeraato 36 saas ku buuxsanaysa go'aanka ugu adkaa aan qaatay waxa programkaas qolo Mareykan waday welina uu socdaa programkaas family program markaan bartanka marayo kan dhowr bilood ku jiray marka hore waan cudurdaato waan u sheegay waayo macalinka aasaasay furay baa ahaa macalinkii ilaa galaaska sanadka afraad marsiga noo soo dhigi jiray Dave Fox waxaan ku iri anigu ilmo yar baan haysaa maxaa sameeyaa ka wixii guri gaarka laga deyn doona duty habeenka la seexanayo iyaan ka dhaafi safar buu baxay isagii mid lagu soo bedelo habaar qabtun baa tiri ka dhamaatay
وأنا جمعان صعدة وأنا تكل صوت قشة سو واحد يقول على لبا درهم $100 برنامج كينا كتجو يجينا المية لا طيع سو دنا واحد السري أوكي وقصة فكري بنقول جمعي ورسوا سوى شقة تجي دكتور كيباني مداي ما كان دكتور كي مداي الحياة فرق بيسي وها إما كسرنا وهي هاي ما هين بس ما أركين حتى قفت عشان ما سلامي كريه دكتور كي ما كان ساق صوق على وما أنتي ورسوا ديوت كيلي جا عنقله دنا وضيع عد بتشوجه تيم فيدرال يرادو دنا واحد صار عاي ما يبغى صار شبي أكسين كلا صار عاي كيس واحد لكيني أدو حنوصن دنا وحي ولا حاجة نعرف يقول طبقة كور صار آخر كيس كويت صاوي ولا واحد سبعين صار آخر وتشبيه فرق شباجرة وحن سمعنا إنان استدجينه أون لفتي سكتوا سنين تا وما نهيو سيرجكي كبير صار آخر وطبقة كور صادق سيو أرض صار أرض الميراوي سويسة وحن نفذ إكساست وحن قاعد هو قاري إنان كتبوا كهذا واحد تميده هو يلا يبرا وحي يقول صائق وحن نقول أنا ومنسمي كوس بس كلوينا أختار الموضوع سمعنا لك وحكي يرجع ليا ناس شارك كوريا القاطو وترى هذا ما حنقول أنا ومنسمي دان دوننا ومنسن نقطة لو حصل سنة ده من سوق خسارية حصل رفاضة من سوق عليه دنا هذا وحي يقولوا أرجع وحوي صحراء ده كنت هاجن وين لقى سوقه ويتصي أنتوا يتصي قالوا إيه بلابي يلقى صباح يعني هو ده وشقة دي وهو سيسي أنا أقول حفلة يعني اختاره هو حكوين وحاله بريء لأن وان كصباحا إنما نرسل كي جوجا عاوية ما صباح دوان تورا غلوف صباح دوان تورا ده واحد نقول شغلنا عيب يعني محل أختار كسوق جريء محل عشان كوكاني وجوانكي يروح من قاعدين قاربوها ده ما كده ما إلهي ما حسوستي وحطينا المسلم هاي قف كان دبنا وشقينا إنه هاي أذي وعيلة ويعني هي صحراء دي سيمبل ما كان مسقوش الله أذكر حسيني أنا كسب بحي كريم نبقالي وشقينا يو دن الحمد لله أرتي وحية دبتي وحية كره إنه إلهي يقطع القاضي ونشقيه تي كلام شقيه شقة دي سمت ما شاء الله إلهي من حريص يسيب سورين لكن ولا عقبته حقيقة تيارين وأنا تجي قبل عدد بعض هذا حكوري أنا شقة هذا وانا ما يستوي لكن قاعد ما قريه واحد وانا بريس كل معنا إنما أنا شقة كتجو يا إنا محي هذاني أتقول إيه هالشان سبتارك قل إن لا يقصيه وهي مراهن لو درس كقول أنا كريستامتشو تكلم سمينا حماش مشاري ربنا نجسين شري مشارك نبغى وحنا كده حين شري قاريرو إقامة وهاي وضي لهم الحريصة ده أنت كلو هيا لما أنا كرك على عني كده بطير نكشقه وبرسفين يسوقات وهذا يجسوا عيد ما أنا كرو ثم كمان أنت كلا يسوي ضريرو أنا قلنا عن استبرو مركا وضي عتابة يروح يقولي لعك ترى لوسين إيه بقى وحلا يشجع كثير الله حريصته ودنته إن كان هذا لا الحياة شوين وأصيب صاب بالشيء كويس شيء سك سوكو قاضو ويحيل قتيم قدتك وحنا يعني بريجان ما بريجان شرين برسفيني كان سوى سميت نوع هذا سوى قاعدين شرين دنا هذا لو يسوي علين شرين لبضوا بنكون نقول شرين سان شقة وصيب اللي إحنا صباح حنا مشان تيبر دن مركها سيدي بان أنكو ذي ويقول تلاذو بهان تاي ما بهني ما كون بهان هاي إن جارو يول كي واحد دونيا إن بوس graduate card dhameeyo si aan u dhameeyana ilmahaygiina waa inay xeeraan Soomaalidu xeegana xeegaysa ku noqoto ilkana ku nabad kala sida ilmahaygiina ay u hesho breastfeeding fiican oo nu koriyo oo inay iigaabiyo dareemin ana waxbarashada u dhamaysto lacag ma baahan lacag way iman doontaa maalinteeda way waxaan istaa labada bilood baan lacag badan soo shaqeeyay dadna lacag waxay baan soo ogaad xasib lacagtina meel martay ma garanayo halkii kaga yimid aan ka shaqeynay midaan ugu talagalin hooyo wax barato هذه هو يخبرنا سواء بهانتا إنه هشوا ما لا يدعي مه يجي كويساته برسفين وكوساميسو دنا سيدا مركا قول كنا لا يوفري دنا هبلا يربع من سورها عشرتي يدا مركا هين شرتها كسا برسفين كده كوسامين شر شقدنا كوسيوتي بوس كلا شويت كنا عصيدي كل مين وان سواق الانشبيه مركا سواق الانشبيه ما ضحك ربع مسير تاجي سما مصر يا فامي بريس ما نقضي دنا وحنا هوينا شقة ويننا هلا حاليا شيء مركان ساعة وصاب دميبا إن إستار كان مصاري بوس كبناية شقة دنا سيفي بصوق رجع وانجي كان كصاب حمالي بوري ما تقارا ماشها سيفي جلس كم جيه نمك كمسؤول كما تقانا ويا كمسؤول هبلي هبل لما أنا كرامي أوكي ومركا هو الآن توضح بي صورة الماء ها والشهاد وأنت أصلا شهادان هيست طبعا صراع عثمان صوب برني وحبا كم تشران ها كم تشران هبلي هبل وتك يدوك عيسى دانت قرنينا مركاسان وخلطمي
way ballanteen ilaahay naga dhaxaysan ka baxaan ku uri waan ku noqday waxaan ku uri CCV uu yahay maxaa kugu dhacay maya baan ku uri CCV-giisi maya waan arki doonaa isaga waan kaga imid CCV oo laga imiday dan maanta waxaan go'aansaday inaan isbitaalka weyn aan dhex tago aan free ugu shaqeeyo way waxaan wax soo bartay waa dadka buka uma soo baran inaan lacag helo ilaahay wuxuu ii soo caawiyay inaan u adeego ummadiisa dana dhakhtarkan dhex tagay soo dhakhtarka way waxay haystaan inaan madaxtooyadii u shaqo tagay in bari reelaas aanodi qaateen wadanka inaan joogo ma oga waa ilaa xayad bas dhakhtarna ku xareysnaa liima arkinba dana uu yaabay agaasimi markaa joogay Ismaaciil Xaaji wuxuu oo ma joogtay oo ma madaxtooyadii tagay oo maana halkan ka dhicin maya sooniya halkan ka soo qalin jibay oo markaa imika maxaa diyaar u tahay deegaan idin caawiyo markaas waxaad naga caawinaysaa meesha doontaan inta koola rabtay ugu qor meesha doontaan ugu qor ilaa qof soo shiilmo 3 saacadood isku xiga soo shaqaynaysaa dana halkii baan shaqadii ka bilaabay marka hadaad adigu sacrifice samayso ilaahay baabadiisu ku balaqaya 1 month ma wada joogin markaan helay 2 mishaar oonan ogeyn lagu qorin oday uma baahan cid kale uma baahan qof kasto meel ogaada wuxuu leeyahay doctor Hodan priority number 1 dana wala yara halkaas lagu qoray supervisor qayb ka banaan waa lagu qoray teaching waxba ka banaan waa lagu qoray soo markaa yani waxa weeyaan halka taaganta balba halka ilaahay inta uu gaadho ayuu isaguna kaaga soo dhawaanaya soo markaa taasina saasay markaa shaqo tagideedii niyadjabka uu weyn ka qaaday in meel kale loo shaqo tago ama oday la maro ama xildhibaan la marana taasay ahayd taarabina ka faa'iideystaan waa taa inaad taladiin oo dhan alla u dhiibataan allana isaga ku fura arrimaha waxaad maraysaa jidkaad maraysana ilaahay baa ku wii ka hormaan ogeyn inaan halkan soo fadhiisan doono inaan Axmed iskaas baran doono inaan halkan imaado soo waxay ahayd qoraalka ku jirtay aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan aan soo fadhiisto Dr. Hodan aad bay u mahadsan tahay waxay tusaale wanaagsan inoogu tahay idinkuba sidaad kala dhex baxdeen fariinteeda hooyo wanaagsan oo caruurtii ka warhaysa oo daryeelaysay ardayad wanaagsan oo duruuf kasto timid ardaynimada u dadaalaysa oo waxay gelinaysay dadaalkeeda iyo waqtigeeda ilaalinaysay kale tusaale inoogu tahay qof shaqaale ah oo soo qalin jabiyo shaqo raadinaya suuqinaan cid ka garanayn meel kastana iyadoo wajiyaal intay tiri wajiga iska daysay rabbigeeda isku xidha marka inta meeloodba waxaad kaga dareyn karto hal su'aala kalaan rabaa inaan Dr. Hodan weydiiyo horta mal Hodan martidii hore wax badan bay iga duwan tahay aniga Axmed ahaan waxay iga duwan tahay shakadeeda cajiibka aad gabigeeda la dhacdeen ta kale labaad waxay iga duwan tahay maalinkii aan barnaamijka ku soo marti qaaday waxa ii sheegtay inay si qaalneen hooyadii Allah u naxariistay oo 1999 kii dhimatay iyadoo dhalinyaro ah hooyadii inay garanayso marka waa ixtiraam kale iyo qadarin kale oo hayo xaafadahayga nawaaxiga magaalada halkaas aan beera kulana iyaduna abtiyaashii xaafadu xaga sii degin waa waxyaalo badan oo martida kale ay iga duwan tahay oo aan aad ii si farxad gelinaysa su'aashan rabay inaan ku weydiiyo waxa weey wax qisadaada ku jirta caqabado badan oo koor yimid oo xalisay waxa kale oo ku jira mar shaqadu yaraanaysay mar hawsh badanaysay walow aad xustay wax dhaqama ama xeerara oo lahayd oo markay wax adkaadaan qodobaad isku dhiirigelin jirtay ama waxaad ku dhaqmi jirtay miyuu jira ay dhalinyarada u faa'iideyn kartaa waxyaalaha isku dhiirigelin jiray koow waxa ka mid ah inaan ilaaliyo hooyo wax baranaysa magaca hooyo wax barata soo magaca hooyo wax baranaysa dadku fikir ahaan waxay ka aaminsan yihiin gabadhu haday mar reer yeelato ama ay guri yeelato inaan waxba baran karin waxna qabsan karin soo maadaama ana hooyadii u horeysay ee safka hore soo gashay medicine soo gashay waliba waxaan isiri waa inaad ilaalisaa hooyooyinka ka dambeeya inay ayna baxayaan wajihin caqabad ama magac xumo aan la oran tii hore timid waa tii waxba wadi weeyday taas waan ilaalin jiray waan isku soo celcelin jiray in badan oo xasuusin jiray waxyaalaha ii ahaa xadkana waxay ahayd inaan yacni ilaahay ku xidhnaa oo aan ilaahay ballan la galay ban ilaahay la galay ah inuu ilaahay caawiyo anaan caawin doono ummadiisa waayo waa jid adag bay ahayd taas aan markaa kamid ahayd waxyaalahan isku waxa kale oo ii ahayd inaan kaga gudbo ii ahayd waxay ahayd inaan haystay oo ilaahay iigu deeqay sooj garab ii ah danna igarab taagan markasta soo Soomaalidu waxna ma buuxiyaan oo insaan baan ahayo waxba inama qanciyaan markaan galay programka adag maalin baan ku ooyon ku dhawaad cadaabta hadaan galayno galbaad ilaada dadka waa la qabtaa waa la taliyaa iska joog baa la yiraahdaa
soo markaa waxaan haystay garabkaa adag marka wax hadaan kaa reebi lahaana de waxay noqon lahayd inaad tiraahdo halkaasaan gelin lahayd ii diiday soo garabkaa adagna waan haystay waxaan haystay oo garab ii ahayd hooyo adag oo karti badan oo dhiirigelin badan oo hore u soco u taqaana dan maanta ku calaacalo ilamay ooyi jira waa iska hadlaysa taayadku dalama kugu soo karina ka soco meesha ya waxa kaloo aad maxay dhiirigelinteeda kamid ahaa oo aan caqabadaha kaga gudbi jiray aabaha in xarisan ilaaha ka waraabiyo wuxuu aad u jeclaa waxbarashadayda wuxuu ogaa dreamkayga ilaa markaan yaraa walow isna xilliga aan galay beeraha oo xilli aad iigu adag ahaa uu dhintay aaba sinadad ku dhintay wuxuu ahaa dhiirigeliyahayga weyn talada iyo dadaaranku uga tagay soo jeedina ahayd inuu garab istaago iguna kaalmeeyo inaan wax barto isna uu furiyay labadaba ilaahay waxaan u weydiinayaa jannatul firdaws al-a'la inuu ka asumo iyaga inta ummadana maxamed soo marka waxyaalaha badan baan haystay riyooyin igu aasnaa waalidkii oo garab taagan hooyo gaashaan adaga waxaan idiin soo dhaafo kale marar waxa jirtay markaan lacagta waayo kale hooyo shaqaysay ahayd oo sharanshaari dumarka loo yaqaano ah laakiin markii xamar laga soo qaxay gaab baa la galay danna say noos badbaadiso sacrifice noogu samayso waxay samaysay kolay qaad suuqii jaad ku iibin jirtay bilowgii diblomka businesska waxaan kusoo bixin jiray lacagta jaadka aan kala shaqeeyo hooyo soo waxaan ka xanaaqi jiray lacag la'aan dambe because maxaan mar ku seegay mar waxaan ku seegay gap knowledge sama kii waan soo kabay kii labaad maxaan ku seegay gap of money so gap of money saan u buuxiyo waxaan la halgami jiray hooyadii waan la shaqayn jiray miiskiina waan kala wareegay taasna waan ku bixin jiray lacagta soo cabdiraxmaan aadan ayaan mar labaad xusayaa artikalku iga qoray magaciisa waxaa la oran jiray cat seller to doctor soo marka waxyaalaha badan baa ahayd inaan soo istaago aan la garabkiisa iyo caawintiisa ka soko aad baad u mahadsantahay doctor hodan cabdiraxmaan aadan maxamuud wuxuu ahaa martidii labaad ee barnaamijkeenan khibrad wadaag marka maalinkan soo baahiyey doctor hodan waa ii soo diray maqaalkii xaggan baan ku hayaa from the cat seller to the medical doctor a model of determination and courage marka waxaad tog dheer news baad ka akhrisan kartaan khibrad wadaagna waan soo gelin karnaa cabdiraxmaan aadan maxamuudna aad baan ugu mahad celinaynaa waxay ku tusaysaa qiimaha ay leedahay qoraalku marka wax lagu kaydiyo waxaanu soo dirayay cabdiraxmaan hambalyo aad u badan waxa uu yidhi waxa ka mid ahayd waxaad asiibtay khibrad wadaag martidii ugu wanaagsanayd ee lagu soo marti qaadi lahaa marka isagana waan salaamayna su'aasha ugu dambaysa ee doonayay inaan chance ku siiyo kulay dhalinyarada cashir waxa ugu filan taariikhdii qisadii aad ka wacjibka aad soo dhameystirtay adigoo ka warhayo og xaaladooda oo iyadoo nimco lagu jira haddana eedu iska badan tahay wax badan baa iska jira arday dadaal badanna waa jiraan oo iyaga laftigooda dhib kala jirta waxaa jirta Facebook iyo TikTok waa mushkilad iyagna حتى ها سماه يكاسل تعالي أنا سجينا مشكلة أو هذا الدبادن وقدام بين اللي بعد أكو عفانتي يسجود محاط ثلاثين سنة ليرنا ثلاث كهو ينمو كوحبرشة كموقتها ما ملكش ثلاثة سنين كو وحوية هرت واحد برانس أديها كاسوكم دي أدنى قصة دبكريه دي ميلا قاعد ميسد هذا أديها كاسوك وضس عمود اللغيصة يعني ميل كستو مرتا يابا وحويا ويكاغو أنانسا صوت كوباد وحويا إني أديها كاسوك وضي markay ka soo go'dana maxaad u baahan tahay wixii inaad joogtayso hada laab la ka yeelato tirada maanta waxaan doonaynaa medicine barto waxaan doonaynaa business barto caqabada horeysa ka hortimaadana aad tiraahdo wallahi fiilba waayay maana galaaska ma laga soo dhex saaraya maana maxay baska liiga reebaya daas maxay ku saysaa joogtayntii ma jirto soo meesha waxaad u timiday inaad maxay heedaanay aad way ka soo go'day hadday ka soo go'day daw adkayso meel roog cas lagu dhigay ma jirto meel kasta maxaa buuxda guucundiyo qodxo challenge lagu sheegayo ama waxyaalaha laga baranayo caqabadaha waa taas wayna markay isku soo wajahdaba waad lesson line ka samaysaa the other thing aan kula talinayo waxa weeyaan waxyaalahan ku dhaqmi jiray anigu aan isku dhiirigelin jiray xilliga aan u horeysan jaamacadda waayay waan heli karay cidiga bixisa
laakiin haddaad naftaada ka dhaadhiciso in adiga lagu baahan yahay waxaa ka baxaysa inaad adigu baahan tahay meesha marka haddaad tirahdo adeerkay qurbaha ku jooga semester imuu soo jirin eedayo halkan jikanada joogtaa waxba imay soo caawin hooyaday waxbay iska haysataa jageerna imay iibin soo intaasaa lagu soo leekaysiiyey halkaasaa lagu soo gaarsiiyey alxamdulilah inaad adigu marka hore oo maskaxdaada ku xidho maanta waxaa tahay xooggii faamigaaga tacabkoogii baa tahay adigu maxaad kusoo daraysaa dadkiina yaad caawisa yaad wax tartay aduna soo la xisaabtanto waxa kaa yaraanaya challenge-ka badan ama waxyaalaha waqti nafsiyanka ee dadka gala ee adeerkay uu arki doono semester biiga bixin waaye way kaa nadiifoobaysaa dan waxaad ku fikiraysaa adeerkaa waalidkaaga oo qofkaa weyn isaga maanta garab u baahan maanta haddii ku tiri waa laga yaabaa muu hayn marka inaad positive u fikirto adiguna aad istiraahdo maxaad qaban kartaa adigu dadka maxaad tari kartaa ummadda maxaad tari kartaa qoyskaaga maxaad tari kartaa waxay tiraa soomaalidu tiisaba daryeelaa tu kala ku dara taada ka bilow hadday maanta kugu adkaato dee maanta fursado badan baa jira soo maa soo maxay dhaha ardaydu imika wax lagu shaqeey fiirweer wax soo home education kaba ciidaa ka badan soo xal raadi aad ku dabarto jaamacadda laakiin aad soo fadhiso tiraahdo semesterkii baan waayay maya marka taasi maxay keenaysaa adkaynti tii koobaad maxay ahayd in adiga kaa go'naato oo ina freeku ku odhanin ganacsi baan leenahay business kale haddaan business jecleen baran kari maysid haddii reer ku dhahdaan reerkeenu ama jilibkeenu qoyskeenu dhakhtarba ma laha gal dhakhtar adigu dee dhakhtarba uma diyaarsan inaad gasho adigu daba kariix baad noqonaysaa soo caqabadda u horeysa kaa hor timaada ama macalinka hore isqabataan ama kooraska horeed ku liidato ama challenge hore ka hor yimaado waad ku dumaysaa because adiga kaanay soo go'in markii hore soo markaa waa inaad ka go'naan timaado talabaadna waa inaad ku adkaysato ta kalena maxay aad la timaado maxay daana samir inuu ilaahay dee islaam buu inaga dhigay waxaan nahay dad ilaahay doortay alxamdulilah ummadda ilaahay abuuray ummadda ugu nasiibka badan baan nahay waa islaamnimadu wax badan bay kaa caawinaysaa inaad martaa yaqiintii alla u noqoto allana isku xidho taladaada ilaahay u dhiibaa isagaa kuu qorshaynaya sida ugu fiicanna kugu sameeya hooyo hodan jaamac cabdi aad baad u mahadsan tahay barnaamijka khibrad wadaag 3 qodob baa astaan inoo ah halkaasaad ku arkaysaan taariikhdii hodan waad aragteen inta degree labada master halganka ay soo gashay waa meel wax laga baran karo ta kale labaad khibradeedii waxbarasho qoysnimo way nala wadaagtay marka tusaalaha aan doonaynay inay noo noqotay waxa kamid ah hooyo qoysnimo ku guuleysatay marka inta badan hay'ada waxa la naga dhaadhiciyay marar badan gabadhu haday si fiican wax u barato qoysku waa iska yar caadi marka ama ilmo yar dhal ama iska badda doonto iska shaqayso diidna marka waxay ku dambeynaysaa inantu intay wax kasta samayso haddana aanay laakiin adigoo shaqaysanaya hooyo fiican baad noqon kartaa adigoo wax baranaya hooyo wanaagsan baad noqon kartaa dhinaca kale inamada waxay tusaale inoogu noqon kartaa in qof walba uu ka warhayo ogaado walaashii xaaskiisa siday ku sugan yihiin markay wax baranayaan ka yihiin waxaasoo dhan ay tusaale inoogu noqoto aan ku soo gabagabeeyo waa tusaale wanaagsan oo dhan akhlaaqeed iyo diineed iyo dadaalba inoo ah aad baad u mahadsan tahay waqtiga qaaliga inaad hooyo nala qaadato wax weyn bay noo tahay waqtiga kaaga mahadcelinaa khibradaadan kaaga mahadcelinaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaantiin dhalinyarada iyaguna soo camiray meesha